nabadgelyo korkiina ha ahaato idil ahaantiinba waa anigoo warsamo ah iyo kanalkeennii Xawa TV ee alaaba nagala socon jirteen. maanta halkan waxaan ku wadaagaynaa muuqaal aynu ka soo duubnay magaalada mustaqbalka waa Lusail. Lusail waa magaalada lagu tilmaansaday mustaqbalka, waa meel loo asteeyay inay soo dhaweyso martida ciyaaraha koobka adduunka ee 2022 ka imanaysa daafaha dunida. waa meel marka aad aragto aad ku indhadarayso quruxda dhismayaasha, jasiiradaha dadsameeyga ah iyo bilicda wadooyinka iyo goobaha faakahaysiga. magaaladan dhismaheeda waxaa la bilaabay 2005 maantana waa duni dhan oo siraadan oo dhammaystiran oo dhammaan adeeg oo dhan aad ka helayso. waa magaaladii ugu horeysay ee dalkan Qatar ee dadka ajnabiga ah dhul iyo dhismayaal ay leeyihiin ku yeeshaan. Lusail waa magaalo xeebeed, waxay ku fadhidaa baaxaddan 38 kilomitir square, waxayna u jirtaa bartamaha magaalada Dooxa 23 kilomitir. magaaladan waxaa loogu talagalay inay qaado dad gaadhaya 450,000 oo qof, kuwaasoo isugu jira dadka degan guryaha, kuwa xafiisyada iyo meheradaha ganacsiga. Lusail oo ah mashruuca mustaqbalka ee waddankan Qatar, taas oo looga jeedo in lagu abuuro bulsho horumarsan oo higsi leh kana mid ah dunida horumarsan. shalay subaxnimadii ayaanu socdaal ku tagnay gaar ah magaalada Lusail si aan idigu soo gudbino taariikhda iyo cajabta iyo quruxda magaaladan. daawasho wanaagsan dhammaantiin. Fadlan like, subscribe,